السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا قيمها بدن ee ku xidhan channelka dadweynaha ee YouTube halkan maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa cuntooyin laga yaabo inaad markii hore aad cuni jirtay isla markaana aad jeclaydba balse maanta markaad ogaatid xaqiiqooyinkooda dhabta ah iyo waxa laga sameeyo in aad banici doontid ujeedada aan mawduucan idinku soo gudbinayno ma aha inaan cuntooyinkeedii nacsiino balse waxaan idinku soo gudbinaynaa inaad ogaataan waxyaabahan aad cunaysaan asalkooda iyo khataraha ay qaar ka mid ah ay xambaarsan yihiin si aad uga digtoonaataan haddaba cuntooyinka iyo cabitaanada aan ka hadli doono ayaa laba nooc kala ah nooc waa nooc haddii aad ogaato asalkooda aad nici doontid dhibaatooyin fara badanna ay xambaarsan yihiin kuwaasoo ay gaaladu noo qariyeen noocna waa nooc laga yaabo oo keliya inaad ku nacdid waxyaabaha asalkooda laga sameeyey hase ahaatee aan wax dhibaato ah lahayn sababta looga sameeyeyna ay tahay oo keliya faa'iidooyin laga helay badeecadahan ayaa ah kuwo caalami ah oo caalamka laga yaqaano iminkana waxaynu u gudagalaynaa in aynu badeecadahaasi daaha ka qaadno si aan asalkooda u soo ogaano ee daawasho wacan حتى كسبوا كمان نقاط حتى في الحلقة هذه قصارى سبسكرايب سيادة راسعة برنامج والبوليسو قليل وهوبال إن بدنوا قبلها كم إذا هاي تعليهن إن مرصدنا حمورضها بل سميس ويديسين مرنبا أصل كودا يوحيا بها لغا سمي حمورضها ma og tahay xiriirka ka dhaxeeya idaha iyo xamuuradaha ay dumarku marsadaan waan ogahay oo in badan oo inaga mid ah waxyaabaha noocaas isma weydiino maadooyinka laga sameeyo xamuuradaha ayaa waxa ku jirta maado lagu magacaabo ismaalinalayn maadadaasi oo laga soo saaro dhagorta idaha ayaa la soo qaadaa deetana waxa laga soo saaraa maado ka mid ah maadooyinka laga sameeyo xamuurada maadadaasi oo ah maadada udub dhaxaadka oo ah dhammaan waxyaabaha laga sameeyo xamuuradaha daraasado la sameeyay ayaa waxa ay sheegayaan dhaxdhaxaad ahaan dumarka isticmaala xamuuradaha ay ku tagaan jirkooda ku dhawaad 4 kiilo xamuurad ah guud ahaanba noloshooda cabitaanka Red Bull sharaabkan ayaa ah mid caalamka si weyn caan uga ah iyadoo ay inta badan dadku u cabaan inay ka helaan firfircooni awood iyo inuu caajisku ka duulo laakiin waxa isweydiin mudan waa maxay maadada saas cajiibka oo ah ee ku jirta sharaabkan maadadaasi ma tahay mid aamin ah mise waa mid aan aamin ahayn badanaa dadku isma weydiiyaan su'aalo noocaasi ah badankeenuna damba kama gallo inaan sii raacraacno waxyaabaha laga sameeyo asalkeeda balse arrinku waa uu ka khatarsan yahay sidaynu u malayno badankeenu ardayda ayaa badanaa waxa lagula taliyaa inay cabaan cabitaankan waqtiyada imtixaamaadka galayaan iyo waliba dadka shaqaalaha ah si wahsiga iyo caajiska uga duulo una helaan firfircooni dheeri ah sidoo kale dirawalada ayaa waxa lagula taliyaa inay cabaan waqtiyada ay daalka dareemaan iyadoo oo la aaminsan yahay inay ka helayaan awood dheeri ah balse xaqiiqda ayaa waxay tahay inuusan cabitaankani jirka ibni aadamka ka qaadin wax wahsi iyo daal ah balse uu ku dhex ururiyo gudaha jirka waqti walba oo cabtid jirkaaga ayaa waxa uu ku ururiyaa tacabka iyo daalka taasi oo sababta in haddii uu qofka cabitaankaasi joojiyo ay jirkiisa ku sii kordhaan tacabka iyo daalku oo ay waliba hurdalaana ugu darsanto arrinkaasi oo sababaya inuu qofku waqti walba u baahdo inuu soo iibsado cabitaankaasi cabitaankan ayaa inta badan waxa lagu xantaa in laga sameeyo kaadida xoolaha iyo shahwada dibida iyo wixii la mid ah balse warkaasi shirkadda ayaa bogooda internetka ku beeniyay iyagoo ku tilmaamay warkaasi mid ku tirikuteen ah oon sal iyo raatoona lahayn haddaba xaqiiqdu waxa ay tahay inuu cabitaankani ka samaysan yahay maadooyin khatar badan oo ka kooban sonkoro samays ah oo aan dabiici ahayn sida maadooyinka sucrose iyo glucose iyadoo lagu dhex barxo sonkorta dabiiciga ah sonkorahaasi badan ee aan waliba dabiiciga ahayn ayaa waxa ay keenaan xanuuno badan oo ku dhaca wadnaha sidoo kale halkii taasad cabitaankaasi ah ayaa waxa ku jirta qadar aad u badan oo kaafiyiin ah taasi oo keenaysa dhib aan yareyn haddii aad loo badsado cuntooyinka qabow ee diyaarsan ma og tahay cuntooyinka qabow ee diyaarsan in dalka Mareykanka oo kaliya sanadkii laga soo xareeyo kharash gaaraya 3 bilyan oo dollar sanadii 2012 ayaa wargeys ku xeel dheer dhinaca cunooyinka ayaa waxa ay bilowday inay baaritaan ku sameyso oo ay hubiso cunooyinkani diyaarsan waxa ay ka soo saareen baaritaanadoodii macluumaad oo ay dhibsadeen xoogay dadkii cuni jiray cunooyinkaasi cunooyinka qabow ee diyaarsan ayaa ah silsilado dheer oo ay ka faa'iideystaan dadka ganacsatada iyo tujaartu waxa ay soo saaraan shirkadahan hilib iyo khudrado pizza diyaarka ah ee lagu sameeyo Ireland ayaa waxa uu ka kooban yahay 35 waxyaabood kaasi oo la sii gaarsiiyo ilaa iyo 60 wadan oo ku kala yaala caalamka cunooyinkan ayaa waxa laga yaabaa inay yaalaan ilaa iyo sanado iyagoon waxba isbedelin taasi oo sabab tahay kimikooyin fara badan oo lagu daro arrinkaasi oo keenaya qofku haddii uu aad isaga badiyo inay si kadisa cudurro ba'an u haleelaan jirkiisa Nutella ayaa ah shukulaato caalami ah oo dadka badankoodu aad u jecel yihiin iyadoo aysan in badan oo dadka kamid ah aysan jeclaynba inay hal mar gurigooda ka dhex waayaan haddaba shukulaatadaasi macaanka badan leh ay dadku aad u jecel yihiin ayaa waxa ku tuugan siro aad u waaweyn oo khatarteedana wata xaqiiqooyinkeeda dhabta ah markaad maanta nala ogaatid waxaan ku cadeynayaa inaad haddeed 3 jeer ka fikiri doontid inta aanad cunin ka hor
Nutella waxa soo saarta shirkad Italian ah oo lagu magacaabo Ferrero. Shirkadan ayaa waxa la aasaasay sanadii 1964. Shirkadda Ferrero waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad shirkadaha soo saara macmacaanka ee wadamada Yurub, xagga ay caalamka guud ahaanba kaga jirto kaalinta lixaad. Aasaasii shirkadda oo lagu magacaabo Pietro Ferrero ayaa sanadii 1946 ku fikiray inuu sameeyo shukulaato macaan si loogu cuno roodhida. Waqtigaasi ayaa waxa uu ku bilaabay maadooyin dabiici ah oo waxyeello lahayn. Hase ahaatee intaasi kadib shirkadda ayaa isbeddello badan lagu sameeyay, iyadoo ay shirkaddii guulo badan gaadhay. Bilowgeedii hore ayaa waxa lagu bilaabay in gacanta lagu soo saaro, iyadoo muddo kadibna ay soo bedeshay in warshada lagu sameeyo. 2015 ayaa khubaro baaritaan aad u farsamaysan ku sameeyeen Nutella. Baaritaankii kadib ayaa jawaabtii la baahiyay. Jawaabtii laga soo saaray oo noqotay mid dadkii isticmaali jiray aad uga yaabisay. Isla bishaasi ayaa wasaaradda deegaanka ee dalka Faransiiska waxa ay ku dhawaaqday oo ay uga digtay shacabku inay ka istaagaan cunidda Nutella. Arrinkaasi oo sababay in taxaddar badan laga muujiyo. Shirkadda Nutella ayaa waxa ay ku sheegeen bogooda internetka inay ka kooban tahay maadooyinka soo socda: sonkorta, saliidda laga soo saaro midhaha timirta, bunduqa, kakao iyo maadooyin kale oo badan. balse warkaasi xaqiiqooyinka dhabta ah kumaysan soo bandhigin ee xaqiiqooyinka dhabta ah waa kan la soo saaray. Sheekadu waxa ay khusaysaa dhinaca dhadhanka macaanka, waayo Nutella inta badan waxa lagu jecel yahay dhadhanka macaan. Waayo dhadhanka Nutella waa mid samays ah oo aan ahayn mid natural ah. Maadooyinka ku jira ee lagu daro ayaa waxa ka mid ah maado lagu magacaabo vanillin. Waa maado khatar badan oo la isku dardaray oo ka kooban kiimiko, waxaana lagu tilmaamay inay tahay maado khatar badan oo sun ah oo aan caafimaadka haba yaraatee u wanaagsanayn. Balse magaca ayay dadka ku siran magaca oo u eg vanilladii dabiiciga ahayd, hase ahaatee vanilla haba yaraatee meel kama soo galo. Waa maado ka kooban kiimiko oo lagu magacaabo vanillin, taasi oo dhirta haba yaraatee meel ka soo gelin. Tiknoolajiyada iyo horumarka awgeed ayaa sidoo kale waxa loo sameeyay udgoon u eg vanilladii dabiiciga ahayd, taasi oo keenaysa inaysan dadku kaba shakin. Guud ahaanba dhakhaatiirta ayaa waxa ay sheegeen inay Nutella ku jiraan maadooyin aad u khatar badan oo laga qaado cudurro badan. Waxaan kaaga digayaa inaad cuntid ama se aad badsatid Nutella. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa dambi dhaaf iyo caafimaad fiican. intaasi iyo barnaamijkeenu ku egyahay dadka cusub tahay channelkeena dadweynaha haatan ku soo biir oo subscribe saar si aad ula socoto barnaamij walba oo soo galno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi haddii aad ku cusub tahay channelka dadweynaha haatan ku soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan adiga oo saaraya subscribe si aad ula socoto barnaamij walba oo soo galiyo.